السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhawaada dhaamka kal qoray oo aan maanta joogno muuqaal aad iyo aad u qurux badan insha Allah ka diyaarin doona. Dhaamkan kal qoray sidaad muuqaal ku aragteenba horta waa u dhameystiran yahay wax badan oo ma harin, laakiin maanta biyihii aad maalintii dhaweyd ku aragteen kuma jiraan. Biyihii sababta looga sii daayay aanay imika ugu jirina muuqaalkaas ku agoon doontaan. Dhaamka kal qoray xagu ku yaala. Dhaamka kal qoray wuxuu ku yaalaa dhinaca waqooyi ee magaalada Hargeysa amba degmada Daarasalaam iyo deegaanka Geedeble ee ku yaalaan inta badan ceelalka magaalada Hargeysa biyuhu ka yimaadaan. Dhaamkan maxaa lagu falayaa, maxaa loogu talagalay, waxa uu noqonayaa in falaya dhaamkii ugu weynaa ee laga sameeyo Soomaaliland markaad eegto baaxadda uu ku fadhiyo oo ilaa halka biyaha loogu talagalay inay fadhiistaan 1 kiiloomitir iyo wixii kale sii fadhiisan karaan. dhulka bannaan dhan waxa loogu talagalay hadhow inuu noqdo dhulkii beerayadii amba mashruuca dadka ka samaysanaya ay ka samaysan karaan. Waxaan taagnay imika laba gebi meel u dhaxaysa oo xaggana ilaa dhowr boqol mitir ayuu dhaamku naga xigaa, xaggaana ilaa dhowr boqol mitir buu naga xigaa. waa dhaam aad iyo aad u weyn, magaalada Hargeysa wax weyn tari doona. marka sababta loo isticmaalayana muuqaalkeenan aynu ku faahfaahin doonaa. ku soo dhawaada dhaamka kal qoray. لقفرن دحشوغا بمبشادا مزاي أدنا لابع كفانتي اللي من وحاك قادابا لما لابطي صعدكي أدنا لابع كفانتي اللي من وحاك قادابا لما لابطي صعدكي أنا قنا الرياعيل لها شذاك القعلك دام كان سيداد مالويد muuqaala أركسين oo inoo soo dubay maarayaha wakaalada biyaha. waxaad arkaysaan dhaamkan oo buuxa oo biyuhu ilaa halkaas taba fadhiyaan, laakiin imika saad arkaysaan dhaamkii biyihii kuma jiraan. sababta aan leenahay waa ka arkaysaan uu maran yahay oo imika saacad mirar ka hor ayaa waxa ku jirtay cagaf oo waxay ka jabinaysay biyihii. sababta looga jabinayay inanka meesha ayaan soo weydiino waxa uu nagu yiri dhaamka waxay biyuhu galeen xilli aan loogu talagelin oo sabadii halkan la dhigi lahaa. halkan dhaamku intay biyuhu fadhiisanayaan la diyaariyay ilaa xidhka aad arkaysaan ayaa loogu talagalay in la garaaco oo sabad la dhigo inta dhoobadan laga laabo oo halkii saayidka la sameeyo. marka xilligii biyaha loogu talagalay isagoo gaadhin ayay biyihii galeen. marka sababta ay cagabantii waa bartan ku jirtay halkaas ka dhaxbaxdo dooxii kal qoray laagtii kal qoray la xidhay waa taa ka baxday. marka imikay jabisay adu in yar ka hor bay jabisay biyo ka sii deysay, imikana inta xaalka ayay ka sii deynaysay. waayo dhaamka waxa loogu talagalay in la garaaco halkii biyuhu fadhiisanayaan oo dhoobada laga xaadho oo ciidda adag la soo saaro kadibna sabad waxoogaa ilaa inta iliqabatee sabad la dhigo. marka inta ayaa u hodhay, inta kale dhaamku waa u dhan yahay. dhaamkan waxa sida aynu xogta ku hayno waxa iska kaashaday wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa iyo dawladda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland. inkastoo magaciisa la sheegin, laakiin waxaan u malayn sidaad muuqaalada qaar ku arkayseen ganacsada ka qayb qaadatay inaad magaciisa haysaan sida aynu Bariland Gowsh ka dareenay inkastoo magaciisa arag magaciisa ka qaadatay. marka dhaamkani waa dhaam ay magaalada Hargeysa ay ku rayn doonto amba ay ku raysan doonto. dhaamkan maxaa loogu talagalay? dhaamkan ma booyadaha ayaa ka dhaaminaya, ma dadka ayaa loogu talagalay in adhiga iyo geela ka waraabsadaan, mise waxa loogu talagalay dadku inay beeraha ka waraabsadaan? waxaasoo dhan waa maya. sababta dhaamkan loo sameeyay waxa weeyaan inuu qayb ka qaato biyaha magaalada Hargeysa, taasi oo ah in horta mar deegaankii amba ceelashii biyaha oo area-dan ku yaala inay biyuhu markay ilaa halkee fadhiistaan muddo in ay ilaa dhowr kiiloomitir biyuhu dib u soo fadhiistaan inuu dhulku biyaha cabo kadib beeraha ka dambeeya iyo ceelasha ka dambeeyaba ay biyo badan helaan ceelalkoodu. taasi waa sababta koowaad ee dhaamkan loo sameeyay oo deegaanka. waayo biyaha ceelashu waa biyaha ceelasha aynu ku cabnaa waa biyaha roobka oo dhulka galay. marka dhulkii baa lagu nageynayaa sayn xogta ku hayno deegaankan oo dhan wakaalad biyo waxay ka samaysay biyo joojin ka samaysay laagay oo dhan waxa xidhay kana qaybi ku yahay waa dhaam intaba ka weyn. saan filayo wuxuu noqonayaa dhaamkii ugu weynaa ee Soomaaliland laga sameeyo. taasi waa taa. midda kalena waa in iyaga laftooda kolkol la isticmaalo oo loo sameeyo inta la filter gareeyo kolkol lagu nasiyo ceelasha magaalada Hargeysa waraabiya in kolkol laftooda lagu nasiyo ayaa loogu talagalay oo iyaga laftooda inta la filtariyo la isticmaalo. waayo dawlad amba dad biyo kama dhargaan ilaa iyo inta ay isticmaalayaan baa la yidhaahaa biyaha dooxyada oo dooxyada xidhanayaan kuwa baa ku filnaan kara. magaalada Hargeysa imika population-keedu 2 milyan ay ku dhow yahay. marka haddaan dhinac walba dhaam laga samayn oo aan kolkol dhaamka la isticmaalin
kuma kafayn karaan oo kuma filnaan karaan waayo dunidu inta badan waxay isticmaashaa dhaamamkan oo kale ayay xidhataa oo isticmaashaa marka dhaamkan gebigiisaba waxa dhaba imika haddaynu soo koobno in halkan dhoobada laga qaado dabadeed la dhigo sabad adag iyo intan imika la furay in iyadana dib loo xidho saad arkaysan waxa lagu sameeyey bahal dhooba ah amba dhagaxaan ayaa meesha la dhigay khatara iyo camuud adag oo ah TBU macnaha biyo ay ka dhaxbaxayeen muuseen ahayn sabadna saasa loogu xidhay oo ilaa gunta la xidhay si ayna camuudda biyuhu u dhirbaaxin kolay saayidkana amba dhinaca laga saaray inkastoo maqlayba chamberada halka ku yaala ayaa laga saari doonaa marka dhaamka kal qoray oo aan in badan maqlanin inkastoo maanta jacleynba isagoo buuxa inaan nimaadno ragga qaar ila socday lahaayeen waan ku dabaalanana oo dhaamka laguma dabaashan leeyahay waa laga cabaawo oo la daawadaan dhaamka marka dhaamka kal qoray wuxuu noqon doonaa insha Allah dhaamamka guuleystay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland وهاجك داود يال إمك واحد نكون سجنا هاي فكت أقصى رئيس دامكا أم بعمودي يو كيف جيل حرام عند كذا كسرنا صار كسام بيلا إمك إلا كونتن متر ما يدا تلو أيو هوس أيو دام كرب أيو دريني مركا واحد حرام إمك واحد صارنا سايدين شيء هالك أقصى رئيس معناها لاكتي لحرام كل قرآن وطا ديجان كوك إلا هالك هم وضع dhaamku sida idin muuqataba waa dhaamka inta leeg xaqani waliba anagu xaqa imka bari baan u badanho xaqa cadeedu naga haysana waa dhaamku waa u badan yahay deegaankii iyo gaadhkii iyo halkaas naga xigan halkaana waxa la sheegay in lagu talagalay in fardaha lagu xareeyo farda lagu xareeyo meelna wax loogu beero marka de wada arkaysan dhaamku intuu leeyahay weynida insha Allah de muuqaalka ama muuqaalka xigay nimaadeen ka duubi doonaan wuxuu noqon doonaa dhaamkaas oo labada gebi maraya sidaad arkayseen bad muuqaalada ku aragteen ba dhaamku biyo waxay gaadheen meel fog oo uu buuxsami gaaray waa hagaag maadaama idin sharaxay in badan dhaamka kulli ninka noogiisi aqoon badan yahay waa shaqaalihi meesha marka waxaan weydiinaa dhaamkani waa uu buuxay maalin dhaweyd sax horta magaca Cumar Yuusuf Cismaan baa la yiraahdaa Cumar Yuusuf Cismaan waxaan kulay soo dhawow dhaamka qoray ma joognaa dadka in badan baa u sharaxay lama joogni waxaan ku iri macnaha sababtii dhaamka biyaha lagu siday maadaama maalin weyd biyo galeen maxaa sababta aad nagu sii kordhin kartaa sababtu waxay ahayd tiyo gacanta lagu hayo oo shaqadu socoto ayaa roob baaday daadkii baa soo galay markaasi sababta looga sii daayay saasay ahayd markaasi shaqadu haddana ugu sii socoto loo dhammaystiro ayaa looga sii daayay biyaha marka imika waxa la gudagali doonaa marka la dhameeyo biyaha laga dhameeyo in dib intii kale loo bilaabo oo dhoobada laga xaadho imika dhoobadiiba socota iyo biyihii ku haray ayaa laga qaadayaa markaa kabacdi baa dabeedna hawshiisa haddana dib loo bilaabayaa oo la dhammaystiraya halkaa imika dhoobada taallo maxaa la dhigi doonaa hadhow halkaa dhoobadu taallo horta dhoobada laga qaadayaa marka hadhow dhoobada laga qaado dabeedna hadhow tole injineerada dee ayaa u cilmile waxay dhigayaan aad iyo aad waad madsantay maxaad saaxiibaday iyo dadka reer Soomaaliland ba soo dhawaada waxaan leeyahay saaxiibaday iyo dadka reer Soomaaliland oo dhanba ku soo dhawaada dhaamkan waa dhaamkii ugu horeeyay sidaas oo kale in laga daydo oo dhaamamka badan iyo biyaha faraha badan ee dhaafaya dooxyadayna marayayna dhaafaya in saas oo kale laga faa'iisto oo dhaamamka la xidho biyaha iska soconayana la xidho ayaan aad iyo aad ma kusoo hay khayr badan rajini laban jacayl laymasii adna lagu madibine laban jacayl laymasii adna lagu madibine lugtaadigu adkaysaaye armadliidakaaye ana dibin haleela siday noo sheegeen inamada meesha ilaalinaya ilaa iyo halkaa ay biyuhu gaadheen marka khubradii iyo dadkii dhisayay baa isla go'aansaday buu nagu yiri in macnaha dhaamka xilliga imka biyaha laga sii daayo kol hadii la tijaabiyay inuu biyihii iyo si uu qabanayo in laga sii daayo oo halka laga faruuro halka bartanka laga furay ay laagto halka xanantay si biyahaasi uga dhamaadaan
kolay ka dhamaadana dib baa looga hawlgeli doonaa oo waxa laga qaadi doonaa dhoobada dhaamka sababta iyo waxa lagu falayo iyo sida loo isticmaalayo waan sheegay laagtii imka halka imka deegaankan halka muuqda ee quruxda badan waa deegaanka hadhow macnaha dadku kolkay biyuhu fadhiistaan halkan biyaha hoosta uga muusi doona in yar oo leefala iyo inta soo wareegta ee saayidka la sii daayo ayaa macnaha dooxa wada biyo ka dhigi doonta dooxaas uu soo maaxan doona hadhow mid wada biyo noqon doona iyagoo biyo xiran yihiin inta yare muusasa waayo anigu khibrada ka shaqay ka soo haray waxaan ka soo haray dhaamka Gabiley ayaan bari duubay macal xaqiisa hoose waayo xaqiisa hoose biyihii waxa noqday durdur oo in yaroo tinin ayaa niista hoose marasa waxa soo dhay hadhow waxay noqon doonaan dhul wada biyo ceelashu wada biyo noqon doonaan ninkii beer ku lahaana hadhow waa anfici doontaa isagoo biyana u baahan aan biyana meel ka soo jiidan ay beertiisa iyo ceelkiisa yaraa meesha qotay wada biyo noqon doontaa marka waxaan leeyahay dhaamamka iyo laagaga iyo waxyaalaha ugu fiican ee biyaha laga helo waayo biyaha qasabadu inta badan haddii aanay biyaha roobka hadduu yar raago way dhammaan karaa laakiin haddii loo xidho oo deegaanka ay biyahan hoosta u ka cabo ceelashu waxay noqonayaan kuwa boqolkiiba boqol biyahooda aanay dhimin gu iyo jiilaal hadduu maca roobku raago haddaba waa muuqaalkeena insha Allah inta gabagaba ayuu ku dhow yahay insha Allah waxaan jecelahay inaad ka hesheen waxaan toogi doonaa deegaanka Geedeble ee uu ku yaala dhaamkani wax yar u jiro halka cadeed naga xigto inaan ka tagi doono deegaankan sidaan sheegay wuxuu caan ku yahay deegaankan leydkiisa iyo biyihiisuba waa bilaash kulli shaahu bilaash maaha laakiin waayo sababtu waxay iyaga hargeysa waraabiya marka xaq ayuu leeyihiin in leydkooda iyo biyaheeda bilaash looga dhigo xataa shaqaalahan ay ka shaqeeyaan waayo mashruuc kasta deegaanku xaq ayuu ku leeyahay marka ina mariya